بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داودياشا أخيارتا هودا نغا داوتاي كسو دhowaada wararka caalamka internet wararkan idin hayno muddo dheer oo aynu kala maqnayn caaw ayaan dib ugu soo noqonay cilad farsamo oo yara jirtay awgeed kusoo dhowaada wararkii iyo badi bari channel wararka caawan idin hayno waxa ugu dooron Mareykanka Asia Africa iyo Europe haddaan ku horeeyo wararka Mareykanka ayaa sii wada dadaalada loogu xoojinayo dhaqaalaha iyo amniga qaranka mas'uuliyiinta ayaa sidoo kale diiradda saaraya arrimaha socdaalka iyo xiriirka diblomaasiyadda ee caalamka dhanka kale Mareykanka iyo Canada ayaa sii wada hadallo ku saabsan ganacsiga iyo amniga xuduudaha iskaashiga dhaqaale sidoo kale wararka wali waxaan ku guda jirnaa South America Brazil iyo Argentina ayaa xoojinaya iskaashiga dhinacyada ganacsiga iyo tamarta sidoo kale dalal badan oo koonfur Amerika ayaa waajahaya caqabado la xiriira sicir barar iyo dib u habeyn dhaqaale dhanka kale Asia galeena Shiinaha Japan iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa yeeshay kulamo looga hadlayo ganacsiga iyo amniga gobolka Hindiya ayaa dhankeeda sii wada maalgashiga tiknoolajiyadda iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha Yurub qaar ka mid ah dalalka Yurub ayaa waajahaya kulayl daran iyo dabab ka kacaya kaymaha dawladuhu ay kordhinayaan dadaalada lagu wado ilaalinta shacabka iyo deegaanka dalal badan oo Afrika ah ayaa sii wada hirgelinta mashaariicda horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha iyo waxbarashada midowga Afrika ayaa sidoo kale wada hadallo xoojinta iskaashiga u dhaxeeya dalalka xubnaha ka ah dhanka kale Soomaaliya waxa soo baxaya warar sheegaya in Soomaaliya ay bilowday xaraashka qaar ka mid ah guryihii safaaradii hore ee dibadda iyadoo lagu saleynayo dokumentiyo la sheegayo inay rasmi yihiin dhanka kale midowga Yurub ayaa qorsheynaya inuu joojiyo duulimaadyadii qaar ka mid ah u dhaxeeyay Nairobi iyo Muqdisho iyadoo duulimaadkii u dambeeyay la filayo 13 August sababo la xiriira walacyo amni sidoo kale waxaa jira warar sheegaya in Abshir Bukhari lagu xidhay Kenya kadibna dalka lagu soo mastaafuriyay iyadoo lagu eedeeyay inuu watay 2 baasaboor iyo lacag badan oo cadaan ah wararka ayaa sheegaya baaritaan la xiriira tuhunno ku saabsan lacag dhaqid iyo falal sharci darro ah waxa kale oo isla dhex maraya in dawladda Itoobiya ay qorsheynayso dib u habeynta lagu sameeyo dawladda deegaanka Soomaalida iyadoo loo qaybinayo 4 ismaamul oo cusub dhanka kale ka imaanaya Somaliland ayaa sheegaya in ra'iisul wasaaraha Israa'iil uu Isniinta la kulmi doono Donald Trump aqalka cad iyadoo la filayo in kulanka looga hadlayo amniga badda cas weerarada Xuutiyiinta iyo arrimo la xiriira Somaliland dhanka kale magaalada North London waxaa lagu qabtay kulan baroordiiq ah oo lagu maamuusayo marxuum Danjire Daahir Dukaale iyo marxuum wariye sare Maxamuud Ducaale kuwaas oo ku geeriyooday London laguna aasay halkaasi kulanka waxaa soo qaban qaabiyay golaha Xaaji Cabduraawi waxaana ka qayb galay safiirka Somaliland iyo safiiradii hore iyo aqoonsiga safiirada Somaliland warar kale oo hordhaca ayaa sheegaya in dawlado cusub ay aqoonsanayaan Somaliland sida Eswatini Argentina UK Abu Dhabi USA wararka la filayo ee hordhaca ayaa sidaa sheegaya daawadayaal wararkan caawidin hayno waa naga inta tan iyo inta dib u kulmayno habeen wanaagsan muddo dheer baynu kala raagnay wararka imika sidiisii u soconayaan la socdo habeen wanaagsan